maanta waxaan joognaa degmada Boon halkaasoo ku soo qaadnay campaign caafimaad kaasoo ka kooban dhammaan kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Amuud ka kooban tahay ha noqdaan iskuulka nursingka dawada ha noqdaan iskuulka nursingka iyo umulisooyinka ha noqdaan iskuulka ilkaha ha noqdaan dhakhaatiir kale iyaguna nagala qayb qaadanaya oo ah dhakhaatiir ku takhasusay xanuunada qaarkood marka barnaamijkan waa barnaamij taxana ah ama campaign taxana kaasoo nagu soo baxnay markii sanadu yahay Boon ahaana marka la eego markii labaad ayuu noqonayaa campaign markii horeysay waxaan u baxnay ku bilownay waa Boon markii labaad waxaan tagnay Dila oo laba jeer iyo quljeedo hal mar marka barnaamijkan wuxuu qaabilsan yahay in dadka tuulada ama degmada ku nool in loo shaqeeyo wixii soo socon karay marka meesha xanaanada ee bulshada lagu sameeyo iyo in guryaha loogu tago waana soo dhaqaaqi kareen sida doonaba waxaan usoo marka waxa kale oo isku qaybinaa ka kooban laba qaybood oo ah in dadkii la baaro oo la daaweeyo iyo in dadka cidii xanuunsanaysa in lagu tago guryaha waxa kale oo barnaamijkan xambaarsan in lagu sameeyo dadka tuulada degan ama degmada degan in guryaha lagu tago oo ku saabsan wax casharro ku saabsan loo dhigo caafimaadkooda oo kor u qaadaya iyo in ardayda iskuulada dhigata ama secondary ha noqoto ama primary ha noqoto in loo diyaariyo casharro ay kaga hadlaan caafimaadka bulshada dan ah marka barnaamijkani wuxuu xambaarsan yahay maxaadalay hawshaas dhan waxa loo shaqeynaa kii xanuunsanaya ee min kaliya waxa loo shaqeynaa kii xanuunsanaya min kaliya marka barnaamijkani waxa iska kaashada jaamacadda Amuud gaar ahaan kulliyadda umulisooyinka iyo kalkaalsada iyo hay'adda Tidlayra oo iyaduna markaa bixisa maxaadalay fanka marka sanadkii waxaan oo qorshaysan inaan nimaano laba jeer sanadkii waxaan oo qorshaysan inaan nimaano laba jeer tuulooyinka waan badbedelnaa annaga oo eegayna kulba xaaladda caafimaad ay ku sugan yihiin iyagoon u sameynayno waxyaabahan xagga hore ku soo sheegay marka barnaamijkani wuxuu qaataa in lagu fargareeyo maalin kaliya maalintaas oo bilownay 7 ilaa 6 7 aroornimo ilaa 6 habeenimo kulbayntii laga gaaro marka waxaan filaynaa qaybaha maanta jooga waxa waa dhakhaatiirta medical general practitioner oo daaweyntii guud waxa jooga dhakhtarkii indhaha oo isaguna specialist ah oo ka soo qaatay wadanka Yemen oo isagu ka baxsan jaamacadda laakiin tabaruc ahaan ugu shaqeynaya community-ga waxa ku jira dhakhtarkii qaybtii waalida oo iyaguna qaybtii waalida loo soo gudbinayo waxa ku jira qaybtii ilkaha oo dadka ilkaha laga saarayo loo sifaynayo loona buuxinayo waxa kaloo jira in hooyooyinka uurka leh la siinayo tababar ku saabsan caafimaadkooda waxa kaloo jira hooyada uurka leh loo sameeyo baaritaan la xiriira uurkeeda waxa kaloo la socdo dhakhaatiirta Mustaqbal family medicine kuwaas oo iyaguna sameynaya wixii dhakhaatiirta ay sameyn kari waayeen iyo gaar ahaan lagu gudbinayo waxa kaloo isticmaalaa ultrasound kaasoo isaguna firo ah si firiin lagu baarayo waxa kaloo sameynaa daawooyinka ay u baahdaan dadka waalan iyo dadka kale sida kale xanuunsanayba waxaan ku siinaa lacag la'aan daawooyinkaasi wax lacag lagama qaado waxay markaa daawadaas ka kaashada hay'adda iibinteeda iyo jaamacadda Amuud xagga waxaan uga mahadnaqayaa dad badan oo ay ka mid yihiin macallimiinta kulliyadda heersinka dhakhaatiirtana la socota waxaan kaloo mahadnaqayaa Dr. Saciid Awal hadda oo isaguna ah maamulkeeda guud oo nagala hooyihii walbana la daba taagan oo nagala qayb qaato wax kasta oo qabanayno oo ilaa ka soo baxayno Boormeyla ama ka soo baxayno Boormeyla naga warhayay nagala qayb qaato wax kasta oo kala tashano si ay nagu nagal baxaan marka waxaan leenahay jaamacadda Amuud waa sababta ay nagu saaciday basaska ku dhimintay maanta ku soo baxay waxaan leenahay tuulada Boon aad u maasantay degmadu aad u soo dhaweysay waxaan joognaa health center-ka MCH maantani waa health center Boon health center ee joognaa annagoo isugu jirnaa team isku dhafan oo ka socda jaamacadda Amuud qaybaheeda kala duwan ee caafimaadka oo u nimidnay inaan wax ka qabano baahiyaha bulshada ee xagga caafimaadka haba kala duwanaadaan oo isugu jiraan waxa weeyaan dumarka uurka leh hooyada uurka leh ilaa arko dhakhtarkii indhaha oo jooga dhakhaatiirtii ilkaha oo jooga dhakhaatiirtii xanuunada guud oo jooga waxa jooga kalkaaliyayaal iyo midwives waxa jooga gruubkii pharmacist-ka oo dawooyinka bixinaya waa koox isku dhafan oo iswadata shaqada halkan ay u yimaadeenna waa shaqo mutadawacnimo
وجامعة عمود وسؤال بشيء ما هنا عد كله وحكولها نجرين iyaguna hay u garteen dhalinyarada dhaqaatiirta iyo teamkaasi inay dadkooda ku caawiyaan wixii ay wadi karayaan boon markii koobaad ma aha in maadno waa markii labaad waa bulshada deegaanku waa bulsho aad ugu heelan caafimaadka si fiicanna markii loo yimid ugu soo baxay halkan aad arkaysaan waa MCH-ka health center-ka gudaha hadaynu galno waxa ku jira dadkii kala duwanaa ee bulshada oo nooc walba leh oo waxa weeyaan baahiyahooda caafimaad si ay uga faa'iideystaan muddada waqti kooban waxaanu joogaynaa saakoon shaqadan bilownay ilaa galabta iyo ninka dambe inta Ilaahay naga gaarsiiyo iyadoo la arki doono qof kasta oo halkan baahi caafimaad u yimid waxaan rajaynaynaa inay si fiican uga faa'iideysan doonaan annaguna aan dareemi doono inaan wax qabanay haba yaraatee markaas aad waxa weeyaan markaad wax qabato ayuu qalbigaagu wax weeyaan nastay wax aad baad mahadsantihiin shaqo fiican الحمد لله رب العالمين magacay waxa la Dr. Maxamed Ducaale Cawaale waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay xanuunada iyo daaweynta xanuunada indhaha barnaamijkan waxaan ka qayb qaatay laba jeer inta markii labaad markii hore waxaan ka qayb galay barnaamijkan waxay tirabadantii ka hor qoljeeda ku qabanay marka waxaan eegnay tiradan 28 qof maantana waxaan joognaa degmada Boon waxaan ka qayb galay qaybta marka baaritaanka indhaha kullana haddana waxaan aragnay beeshana fara badan waxyaalo fara badan oo xanuuno xal dhinaca indhaha ka cabanayaan sida indha xanuun cuncun arag oo gaaban qaar muraayadaan oo qornay qaar kale dawooyin siinay dawooyinka laftoodana marka waa lacag la'aan oo bilaash oo inaan lagama rabo lacag laga qaado marka walina way noo socotaa baaritaanku hawshana ku guda jirnaa waxaan dhammaan aad ugu mahadcelinaynaa cidii soo abaabshay barnaamijkan iyo cidii ka qayb gashay iyo cidii fangareysayba way ugu horeyso marka jaamacadda Cambuud iyo teamkan marka neersinka iyo maamulkooda aadna ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo rajaynaynaa in ay hore ka sii socdaan oo tuulooyinka kale iyo dadka kalena adeegan caafimaadna gaarin ay ka faa'iideystaan kulleena annaguna diyaar waxaan nahay wixii awoodda iyo waqti iyo mataqaana inaan la garab joogno oo waxba ka hagan wixii aqoonta dadkayga iyo ummadayda waa mahadsantahay bismillaah ar-rahmaan ar-rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam magacayga waxaa la dhahaa Dr. Mustafa Muumin Aadan waxaan ka mid ahay dhakhaatiirtii ka qalinjabisay jaamacadda Cambuud waxaan maanta nabadgelyo ku soo baxnay deegaanka Boon magaalada Boon oo ah runtii magaalo aad iyo aad xadaarad hore leh waana markii shanaad aan nimaadno programkan markaa waxaa iska kaashaday jaamacadda Cambuud gaar ahaan departmentida nursingka oo markaa hormuudka ah hawshan soo abaabushay iyo guud ahaan maxaan ku lahaa fiilka caafimaadka departmentska kala caafimaadka Cambuud Health Sciences marka sidoo kalena waxaa kaalin ku leh oo kaalinta weyn qayb ka qaadanaysay hay'adda TET organization labadooda runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa hawshanna waa hawl runtii aad loogu baahnaa oo dadku ay ku dirsadeen waana dad bulshada Boon aad bay ugu baahneen dhammaan deegaanada kale gobolka Awdal in jaamacadda Cambuud iyo cidii kale ka qayb qaadanaysa saas runtii ay jirto waa hawl aad loogu baahan yahay anoo haddana soo noqdo hawshan maanta waxaan ku socday markaa qaybta dhakhaatiirta waxaan ku shaqaynayay maanta qaybta mental health sida ama xanuunada maskaxda runtii waxaan la kulmay leeshino bukaanada ilaa kala kulmay ilaa tobanay gaarayaan oo noocyo kala duwan noocyadii kala duwanaayeen markaa xanuunada maskaxda iskugu jiray dhammaantood way lahaayeen waxaan qabnay qaybta schizophrenia depressionkii epilepsy iyo suuxdintii dhammaan qaybahaas kala duwan baan aragnay runtii wixii ugu muhiimsanaa inuu qaban karayna waa lagu qabanay ha noqoto ama maxaan tiraahdaa inaan ka taageerno ama siino wacyigelin ku saabsan wuxuu yahay xanuunku iyo sida loola tacaalo bulshada sida ula dhaqmayso in laga sii daayo maxaan ku dhahaa silsilado iyo xarfaan lagu xidhin
sidoo kale wixii dawooyin markaas suurtagala markaa mid walba tii ku habooneed baanu siinayni maanta markaa bukaanada markii waxaan rajeynayaa inay si fiican isku horeeyaan oo dawooyinkaas insha allahu tacaala wax fiican ay naga soo noqdaan bukaanadaas oo dhan horiyo bulshada la bilaabo aragno hawshana markaa si fiican bay laayinku nagu socotaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deegaanka boon waxaan leenahay markaa insha allahu tacaala marba kala fara badan inaynu aragno aad baan magacaygu waa maxamed sheekh axmed kaahiye waxaan ahay muxuu ahaa sanadkii 7aad ee kulliyadda caafimaadka medicine-ka waxaan waa programkii jaamacadda Camuud qaybta caafimaadka oo maanta aan ku nimidnay Boon qaybtii maxaa dhada community-ga qaybtii soo gaari weeday centerka soo gaari weeday halkan waxaan ku arnay hooyo walaal aad u xanuunsanaysa xanuunkeedu waxa uu ka soo bilaabmaya luguhu ka soo bilaabmay waa daciifnimo ama paralysis ka soo bilaabmay lugaha ilaa kor soo socday waxayna qabtaa muddo ilaa 10 bilooda iminka hadda ilaa marka luguhu ka bilaabmay iminka ilaa gacmo maraya naqaska xitaa ku dhagay qof marka waa case-kan wuxuu eegaya maxaa waa neurological problem uma maleynaa marka inaan wax ka qaban karno waxaan maxaa jeclaa marka inaan refer gareyno maxaa la Hargeysa iyo meelo kale in dhaqaatiir kale loo refer gareeyo si loo ogaado bal cause-ka maxaa xanuunka sababaya paralysis kor u soo kacaya aniga my opinion waxay ila tahay in maxaa waa ascending acute waxay waqtiga maxaa la Guillain-Barré syndrome oo maxaa waa ascending paralysis markaas wuxuu baahan yahay investigation badan laga sii qaado si wax looga caawiyo dawo TB ba qaadatay way respond garin weeydo ka jawaab weeydo marka waxa baahan tahay insha Allah inaan dhakhtar weyn oo CT scan iyo xabal laga saaro madaxa laga saaro si loo gaado waxyaabaha sababay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaan iibinay sidoo intuu ku sheegay horta magacayga waxaa Mukhtaar Ismaan Maxamuud waxaan ka soconaa jaamacadda Camuud qaybta caafimaadka xaggan waxaan ku soo booqanay hooyooyin xanuunsanaya ama dad xanuunsanaya oo noo soo gaari kari waaya qaybta caafimaadka insha Allah tacaala halkan ka sii soconayna waxaanu u sii gudbo doonaa bal inaan soo aragno dad garanaysa ama isaan kale xanuunsanaya oo soo gaari kari waaya qaybta caafimaadka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي وبر هاي هاي يا رون هاي لكن صوت رساك لكن اسمه بقى أول هاي هي جراك مرة هاي نقص مفروض أو نقص وقو هيابا ونقص وقو هاي نور عثمان wuxuu ka cabanaya waxaan radaa barar u badan lugaha iyo naqas oo ku dhagaya hore baa loogu sheegay maxaa wadna xanuun marka maxaa radaa xanuunkiisu waa wadnaha weeyaan marka iminka waxaan u habeynay maxaa dawooyinkiisu uu haystaa dawooyin fara badan buu haystaa kamid ah Captopril Enalapril iyo waxa kale oo haystaa maxaa loo sareeyay Lasix ama Furosemide marka iminka waxaan u kordhinay dowskii Furosemide ama diuretics-ka ee kaayada badaniye baan u kordhinay wuxuu ka cabanaya habeenkii kicitaanka ku batay marka waxaan subaxii un laba xabal marka subaxii laba xabal hal qood leeyahay biyo afka ka qaadanaya inay iska daayo sidoo kale milixdan ha yareeyo maadaama kicitaanka uu dib ku yahayna ha kaayada laga qaado muxuu fadhiga laga qaado halkiisa iska fadhiyaha inta wana been insha Allah ya ما بحيان يجو ما حي واحد وكبير حنبارسن تاي واحد كبير halka fugu taran dhabarka iyo inta labada jiri waa kabeer waxaan ay sidiimay waa kaba ay maxaad u sidataa de agaaga kuwana yar jilicsano de waxaan iri agaaga Saudi xaafadii jooga oo maxaa xambaaray alqoobkii waxaan ku jiraa maanta aad socotid baani haddana wixii madow waxaad la iyo wax aan la hadlaba korkaan waa halka tagti lahayd arigo aqayaan la aadu tag haye de arigii waan ka ari koobkani laakiin maxaad ku falaysay iyo maxay koobkani maxaad ku falaysay iyo kaba koobka shaaha baa la iigu shubo ku xabay xasuusteeda ayay wax ka dhimayeen wax aadiya ma deedan maanta waa yana demoy ya moy maanta wax soo kala dheh ها شاهبان أب دور بيع ما أنت ساكم حال أنت دو ساكن شاهون بان أب ما أنت أنا شاهون بان أب
مرة مي أكرنا سوحي أمين أحمد مرة بلاك واحد بانتا ما تقنع إني تكتينا حنانة الله حريدو كان حنانة شنو ذاك من الله حريدو بانتا سلوا عبري ديجي سلوا الله صعب يا ديجي وير يا بني كما كان العبرين كل شيء كربا كجير ولا كان العبرين سلوا الله صعب وحب بانتا إن لا صعد لا صعد ديجي لكن حنانة تيجي ويجي بعض هالمر أنا اسمع عبرته ديجي دوين كنا مرة بعد قاعدنا زيها ويكان جوجني سدوين حاجة على وقرة مرة بوين اللقاء حنون كاغو شيء هذا كبر يا لا شيء واحد كعبناش يا ما هو اسكت أنا ما كسرنا فريسناي واحد كعبناش وما شيء أنت كم ترى من شيء أدو ما رتي أكيد كعبناش لا إلا عرش يا فعلا كوكو درا مس مدح فعلا استبعد مدح هذا ما يرقى قسمه وعلين شكتها ده أدوار مش كتير باتين داوينta indhaha waxa maanta halkan si tumeeyo shaqeynaya doctorka aanka oo noogu yimid maanta doctor Ducale magacay waa Jimcaale Saafilay waxaana gudoomiyaha groupka dentistiga ee maanta soo booqday degmada Boon ee gobolka Awdal groupkeena shaqooyinkan qabanayna waxa kamid ah waxaana u qoradayka shaqooyinkan qabanayna waxa kamid ah buuxinta ilgo la buuxiyo saarida ilga burburada la saaro iyo dawooyinka waxyaabahaas aynu shaqo qabanayno ilaa imika waxaan u shaqeynaa 19 bishan oo isugu jira buuxin qaar aan u buuxinay qaar aan ilka ka saarnay iyo qaar aan dawooyin u qornay insha Allah waxaan rajaynayaa in ilaa inta ka gaarsiin doonto soo shaqeyno haddaan ku yeeshay imika buuxinada oo kale gabadhan imika waxa loo qabanaya iyada ilka laga saaraya وهذه هي اللي سؤال الكويت مقاسيم محمد سليمان استرشن أما صارد واحد إن شاء الله قبلنا كذا قبلنا إلدي قواديات هي إذا لا تقول لك أنت أصلا مقبل البيت إذا نحس كده إننا بحنا كسر علينا سيدي سوارة كلاقات كسر كلام ويجي إن شاء الله إذا نحس كده قبلنا ما كنا يدوا والله مي إذا نقول بحنا سيدي كلام ويجي نحس كده إننا أنت أصلا كتشمي هاي إذا إن شاء الله بحنا ونسيدي كسر علينا marka shaqada qaybta ugu muhiimsan oo intaas insha Allah waa mahadsantii soo aragnaa way ka mid tahay waa qaybta daaweynta xanuunada iyo xanuunada guud waxaa laga joogaa ardayda ka socota jaamacadda Camud kulliyadda jaamacadda kulliyadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka koobaad ilaahay baa mahad dhamaantii ilaahay baa sugnaatay inoo soo galiyay inaan barnaamijkan tabarucaadka u qabano bulshadeena u baahan mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa cidii soo qabsay barnaamijkan oo ay ku yihiin qaybta nursing School of Nursing jaamacadda Camud iyo hay'adda TET oo arrintaas ka kaashaday runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa talaabada wax ku oolka ay u qabteen bulshada u baahan caafimaadka in wax ugu yaraan in awood lahayn inay helaan xarumo caafimaad runtii waa meel aad uga fog xarumaha caafimaadka ma aha markii ugu horreysay ay ka fuliyaan talaabooyin noocan oo kale ah bulshooyinka u baahan waa markii sanad ay ku soo baxaan arrimahani oo xuseeya in olole caafimaad lagu qaado bulshooyinka fog ee ka fog meelaha goobaha caafimaadka laga heli karo waa markii hadda aan ku suganahay magaalada Boon ayada lafteedu maalinka ugu horreysay ay gaadhaan ساعتها waxaan aad ugu mahadnaqaynaa ilaahay mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqaynaa cid soo qaban qaabsay iyo dhammaanba cid ka shaqeynaysa oo isku jirta ardayda fiilisha kala duwan ee jaamacadda Camud way ka mid yihiin masjid way ka mid yihiin qaybta caafimaadka guud way ka mid yihiin qaybta ilkaha way ka mid yihiin qaybta nursing oo ay ka mid yihiin oo ay la socdaan dhaqaatiir waaweyn ay la socdaan qaybta kombiyuutarada ay caawinayaan oo ay joogaan inabada caafimaadka shaqaale wada caafimaadka ee sii joogay halkan
runtii waxaa jooga tiim ballaaran oo khuseeya caafimaadka dhammaan walba waxaanu aad ugu faraxsanahay maanta intii karaankayga ah inaanu si hagar la-aan ugu shaqayno bulshadeeda ku nool degmada Tambon runtii aadna ugu mahadnaqayaa dadka kale caafimaadka aad sii joogtay Cabdiraxmaan sidoo naftiisu talaabooyin runtii horumar halkan ka qabtay aad baan ugu mahadnaqayaa aad nuu salaam mahadsiin dhammaan bacdi shaqaynaysa ilaa saakana kan shaqada bilowda waxaan qabanay runtii waxaan qaabilay dad fara badan oo ka cabanaya xanuuno fara badan waxaan sidoo kale qaabilay dadkaas waxay isku jireen yar waaweyn rag iyo dumar cid waxaan ku ilaahay xanuunada nooc walba noolaada waxaan ogaanay maanta in xitaa meel kasta ay jiraan xanuun nooc kasta laga heli doono runtii taana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan intii karaankayga dadka u qabana anigu ilaahay la kaashanayna aqoonteeda runtii aad baad mahadsantahay hadda waxaan joognaa oo qaybtii dawooyinka dawo absaq sida cabdi waxaan ka socdaa kulliyadda caafimaadka xagga waxaan u nimid inaan caawino dadka community-ga boodega inta badan community-ga dadka dawladaan siinanaa waa free lacag kama qaadayno waa community-ga ayaan ugu deeqnay annagaas barakaano inta badan dawooyinkan siinanaa waa amoxicillin paracetamol sibka ambicolagas oo dawooyinku dhawo yaallaan laakiin diseaska hadda meesha ku badan ee commonka waxaa ka mid ah all UTI infection pneumonia diabetic iyo hypertension xanuunadaas ayaa aad u badan dawooyinka wax walba waa available intii karaankaya waxaan isku dayaynaa inaan daweyno insha allah ilaahay noo soo qaban doonaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله إلا هذا شقف عنه ونسأل أيام سنين قدروا كدوان إلا لحظة طفل بحيين أيام الدنيا فكرة حوية حنون الأدي دقن حنون أسي حديثة يوجد لكن حنون قدرنا لقدمين إلى هذا والنعام بكركة بجاستريكا هي حنون في الفقشة خاصة كلها هذا مرين dadku aad bay u baahan yihiin daryeelka caafimaad oo kale in waxa weeyaan bishii ama 2 bilood ama 3 bilood mar la soo booqdo waxa weeyaan adeegga oo kale soo qabanqaabiyin aad baan waxa weeyaan ugu mahadnaqayaa iyo dadka waxa weeyaan hawsha soo qabanqaabiye jaamacadda Cali mas'uuliyadooda ay ka socdaan diyaas magacayga Cabdiqaadir Shariir كمية دخاتي تكهو كشر وستالك الحياة والسبيطال كمية استافك عمود مانتو وحنا منا مانتو اللي هلا تكي بشر وحنا من نوفمبر 2015 وحنا من جميل يلا كمية هاي في السنة الأول ببيحة كمية ومركي لبعضين معنا degmada Boon waxaan isku jirnaa arday oo tirsan caafimaadka gaar ahaan kulliyadda caafimaadka oo dhan noqdaan nurse noqdaan dental noqdaan lab noqdaan medical student iyo barnaamij iyo anigoo ka socda qaybta postgraduate family physician Ahmad University maanta waxaan ka howlgalnay degmada Boon gaar ahaan anagoo eegayna qaybta caafimaadka iyadoo degmadu ay u baahan tahay caafimaadka in la caawiyo
ilaa hadda waxaan raadinay beeshana aada u badan ay ku jiraan dad waayeela ayeen computer ma saarayna aan laga qaadayna wax lacag waxaanan rajeynaynaa inaan sii wadno dadaalka oon gaarsiino gobolka oo dhan oona ku koobnaano keliya magaalooyinka aan tagnay hore ee haadila iyo bajeeg iyo boor maanta taayana waxaan safar markii ay hawlo caafimaad ku leeyahay boon intii markii ay meesha waxyaabo badan baan markii ay kala duwan baan ku haynay dadku markii ay xanuun farabadan kala duwan bay qabaan markii ay baahi badan oo markii caafimaad u jiray intii ay ku qaban kareen qabanay ma sha Allah dadku waxay soo jeedin wala kaysaan markii xaalku ku taariikhda soo muuqata waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta wixii aan batay dadkayga ma aan markii xalay ku anfaco markii xalay maanta ugu qabto aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta muslimiinta jaamacadda ee markii kan heedeen gaar ahaan kuwa jinaasiga ugu horeysan maanta hawsha isku xisaabay si ay u qabanayaan ee dadka ka dambeeyay aad iyo aad ugu hambalyeynaya oo ugu horeeyay isbeddelka ugu horeeya dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu degmada boon ku nool waxaad moodaa intooda badan inay ka cabanayaan xanuuno badan sidaa darteed ayna awoodi karin inay ku tagaan magaalooyinka dhaqaalaha ku filan ayna haysan marka waxaa u baahan yihiin toddobaadkii in loo yimaado mar laba in bishii kale la soo gaaro in sanadkii kale la soo gaaro si bulshada wax loola qabto maadaama ayna awoodi karin inay ku tagaan magaalooyinka taas waxaa keenaya awoodooda taas iga yar oon awoodi karin waxyaabaha la awoodi karin oo u baahan in sabir la saaro iyo howlaha laakiinse waxyaabaha xanuunada ka kooban anaga saan horeba kusoo sheegay magacayga waxa cabdiraxmaan macdalaan waxaan fadhiyaa qaybta OBD-ga five-ka haddana dhammaan kule activity ka socda MCH-ka inaan gacanta ku wahayno wax muhiim ah sidaasaan markaa aan ula shaqeynaa maanta ugu saaray atarsuunka gaar ahaan dumarka oo lagu eegay atarsuunka muhiimad badanna uu noo leeyahay maadaama aan u awoodi karin inaan ku saarno degmadeeda sidaa darteed maanta shaqo aad u fiican bay ka qabteen degmadeeda oo dad aad u badanna way noo saareen aad iyo aad ugu mahadsan dhakhaatiirta kasoo qabatay maanta هذا غير الأجوبة وغيرتي حملة وعن درجة سماعة كسر كوعد عنه كان هم غيرتي هذا واحد فريق تقولي داويتا كمان أقدر أنصحها شكرا عليك في عنا ما في عنا ما أنا بتكلم طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القسم الأول من البن يقوم السنة. وحن ناس ودي يعني إن كفولنا كدير عافمات أما كل ده حالات عافمات القسم اللي ضد كده كنا من البن. وحنا طبعا كنا قبلنا وحنا الحين نقول بينا أنا وين وانا runtii ilaa imika saan usoo galna saaka 10kii waxaan aragnay ilaa wakaano ku dhow boqol iyo waxoogaa oo iskugu jiro dumar iyo ragba dumarba ha u badnaadaan runtii xanuunadu way fara badnaayeen ha u badnaada xanuunada chronic disease loo yaqaano ama xanuunada dadka la nool yihiin sida dhiigkarkoo kale iyo macaanko kale runtii caloolna way jiraan iyagoo xanuunsanaya ama waxaan qaban karana aan u qabanay
ilaa haddana hawsha waa wadnaa waxaan guda jaweyna intaan qaban karayno aan u qabanno dadka aan markasta dhaab joogno inaan hooyadii baan markasta dhaab joogno ilkaha iyo bixintooda maanta waxaa si fiican looga shaqeeyay ardada jaamacadda cambuud ka socota gaar ahaan qaybta kulliyadda dentalka nabar aad u badanna maanta u qabta maadaama qalab aad u fiican haystaan aanan awoodi karin inaan iligna loo buuxiyo iligna laga saaro sidaa darteed bulshadaanka ku noola ay maanta waxay aad ugu baanayn ay ahayd